weerarkan oo ahaa mid ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa maanta lagu qaaday hoteelka Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la soo dhigay meel gawaadhida lagu baakinto oo ku yaala dhabarka dambe ee hoteelka Maka Al Mukarrama. inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof oo isugu jira dad rayid ah iyo ciidan ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, waxaana qaraxa ka dhashay burburka gawaadhi badan oo yaalay halka uu qaraxu ka dhacay, iyadoona la sheegay in xilliga qaraxu dhacayay ay gudaha hoteelka ka socotay xaflad isla markaana ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya, balse la sheegay in aysan waxyeello ka soo gaarin qaraxaasi. taliyaha booliska ee degmada Hodan oo goobta warbaahinta kula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxa. amiin ilaahay ma subhanahu wa ta'ala waafajiyana u shaqeyn dalkan iyo dadkeena iyo diinteena walaal si adkaysiinba waxa meesha ka dhacay qarax ilaahayna wuxuu ku celiyay makrigii ay wadeen qolooyinkii nabadiidka ah ee ka soo shaqeeyay waxaan wax qasaaraha oo naf iyo maalintaba geysteen lama arko oon ahayn wixii ayagu ay wateen. marka insha Allah ta'ala hadan ku mahad celinaynaa إن شاء الله تعالى وحي أنت كدم بيانا كل ودبقل كذي وحقبت كذي يدتي كدم بيسيدان وسوق قبلهن أذن كاين صبرنا دونا يبقى صحافة أنت بقى وأنا شقدي يوبريشن كي برنامج كي كورتجي سيبان كتبتجي سيبان كجرنا ما دابا أيوة تارجت كي إلى هاين أنجارين إلى هاي كوف الشري ماشاس. hoteelka Maka Al Mukarrama oo kamid ah hoteelada magaalada Muqdisho ayaan ahayn markii ugu horeysay oo weerar lagu qaado, iyadoona sidan oo kale sanadkii hore lagu qaaday weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ka oo ay ku nafwaayeen dad badan. Maxamed Bilageele, Somsa TV, magaalada Muqdisho.